خاصة برايم مينستر فرماجو أرنتيسي مرتبة halkan fadhiso yihiin aqoon-yahano iyo qaar siyaasiyiin oo dalkan degan ahana dad jigooyin kala duwan u soo hayay dawladihii hore ee Soomaaliya ahna kuwa maanta baarlamaanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Sheekh Shariif uu ka taliyo mid kamid ah oo nala fadhiya halkan oo marti uu loogu yahay dadka hawada naga dhigaytay Soomaalida nagala qayb qaatay habeen walba xada barnaamijyada kala duwan ee aan ku soo qaadno arrimaha bulshada ayaa kuwa nagala soo xiriiri kara caawa nambarka 21 41 eber 993 waxaan runtii ka fahfaahanaynaa inaan bedelay nambarkii hore oo yahay nambar cusub kan marka cidii qalin qaadan karto qaban karta marka aan ku celiyo 21 41 eber 993 21 41 eber 993 waan isku daynaa inaan dib ugu soo celino loo hormaro kala caawa nambarkan cusub awgi bal aan dib ugu noqdo Dr. Cabdi Cali Xasan aan ku bilaabo aan weydiiyo su'aal halkan aan niyada ku hayna weydiina rabay umad kalena oo kiin kulli aan ka noqon doono diimaha aan galno xisbiyada kala duwan ee siyaasadeed iyaguna khilaafka ku dhaxaya dalka Soomaaliya jiritaankiisa dilka ku yimi wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya maalintii Jimcaha ahayd waxa sheegtay al-Shabaab afayaan u hadlaya shacabka in gurigiisa ay ku dileen maalintii Jimcaha awoodooda inta gaarsiinta iyagoo ku nool Muqdisho dawladda ay ka jirto waqtigaagi iyo waqtiga maanta caawa 2012 la joogo awoodan jirto oo cidna xaqiiq karin al-Shabaab ee guryaha dadka ku jiray sidoo sheegay sidoo kale in loo joojin karo lagu badbaadi karo marka laga tago siyaasadda shirkadda Isbahaysan iyo barnaamijka aad baa u mahadsantahay waa su'aal aad u fiican oo in la isweydiiyo mar walba u baahan iyo daqiiqad walba haddii la rabo in Soomaaliya arrimaheeda xal laga gaaro sida lagu joojin karo anigu waxay tahay waa laba mid in wada hadal lala fulo dadku dhulkay wax ku leeyihiin sida muuqatana siyaasad bay daneynayaan dhul kamida dhulka Soomaaliyeedna waa haystaan haddii dhankooda laga helo ogolaansho tan kale sida lagu joojin karo waxay tahay in laga tabaabulshaysto dawlad walba ayadaa laga rabaa amniga dadkeeda mas'uuliyiinteeda iyo shacabkeeda ayadaa ballan qaaday in ay ilaaliso cadow kasta ama mid guda ama mid dibadeed ha ahaadee inay ka hortagto taas macnaheedu waxaa weeye ayaan darday ahayd waa u tacsiinayna mar labaad iyo mar saddexaad wasiirka Cabdishakuur oo nin qaali ku ahaa Soomaaliya aad garan karaysaan dad badan ay isweydiiyaan saacadan qofka meesha inuu wax ka noqdo raadiye asagoo nolol ka fiican haysta dibadahan aan joognay ama meelo kale inuu doorto oo hadan riskigaas oo maalin walba dhacay maaha wasiirkii koowaad maaha kii labaad maaha kii saddexaad maaha xildhibaankii afraad shanaad ee ku dhinta asagoo ka shaqeynaya Soomaaliya mar dib u soo noqon doonta dawladeedii dhexe sida kale lagu joojin karo waxay noqon doontaa ciyaarkan la adeegsanayay ee masaakiinta ee aqoontoodii inta la qalday mashruuc aan jirin madaxa loogu shubay mararka qaarkood sida aan warar ku helin leeyahay darooga la siinaya qofkii asagoo iska warqabinba adeerkiis gabadhaan hadda leeyahay waa isqarxisay asaga dugsiga hoose ilaa maanta lacagteeda bixinaya oo wax baray gabar jaamacad dhiganayso takhtarnimo baranaysa ahayd baa la leeyahay aabaheed waa nin dhaqaale haysta qof dee faamil dhan u ahayd iftiinka usoo baxay oo rajeynaya inay takhtarad noqoto ay wax tartay ahayd ayadiina waa tagtay adeerkeeda intaa ku qabanaya waaba marka macnaheedu waxay u baahan tahay meesha wacyigelin xoog leh in la sameeyo ama xag dawladda ha ka timaado ama annaga dadkanaga dhalinyarada oo mustaqbalka maanta iskale in aan ka qayb qaadano ururada kala duwan wadamada ka shaqeynaya idinka media ka shaqeynaya arrinta in xoog la saaro oo wacyigelin xoog la sameeyo sidii loogu hortagay guuraan soo noqday intaan ka bixin waxaa ku mid ah dagaalada Soomaaliya now waqtigan tirada la sheegay 500 ka tilisa marka soo laga hadlaa baarlamaanka arrimaha lagu haysto barnaamijka waxa kamid ah inuu afcad ka soo jeediyo yiri marka war cad oo qarsooneen dadka baarlamaanka ee dibadda jooga naguma laha shaqo kuwa xamar joogay soo hawlgaleen ninkaas leeyahay raaxa ku dhex jira lacag ku leh sax way iyo sheegna ku leh sax hawlgal iyo aqlina ku leh sax way adigu waxaad ku sheegay ma ku nool Norway waa imaadaan Norway waxaad kamid tahay baarlamaanka degan dalka Soomaaliya waxaan baa deganaa aqoontaadu waa dhakhtar waxa waraaqdan horta la ku taala oo raali waxa la yiraahdaa ومن waxa la yiraahdaa Dr. Cabdi Cali Xasan waa Agricultural Economic and Policy PhD holder waa qof loo baahan yahay aqoontaada iyo garaadkaagu badbaada ku jirta sida farmaajo shalay warkiisa maraan dhageystay mar telefoon soo diray wuxuu yiri shicibka waan iscafin lahaa laakiin shicibka daraadiis waxaan u rabaa
inaan u dhinto hadalkiina dadka wasla fadhiyaan ee aqoon ay hadlaya markaan dhegeystiyo wuxuu yidhi jaladii waan ceshay waan ku dhimanaya sidii wasiirka saaxiibka isaga jimcihii loo dilay hawshu dadkiina aqoon-yahanada sidoo kale oo dalkan degan caalamka Afrika meel kasta ay degan yihiin ma laga yaabaa in aad isruursataan oo aad tirahdaan ku bidda dalkiina wax u qabto anigu dee farmaajo ka hor baan arrintaa go'aansaday 2000 markaan tagay dadka qaar inaan waalanahay ii haysteen anigoo dee nolol fiican ku haystaa oo dhulkaan deganaa marna waa shaqaynaya marna dee shirkadaha ku lahaa meeshaan dadkii yaqaano waa yaqaanaa yaa ka doortay oo xabadaas xamar hadda aad ka arkayso iyaan deganahay wasiirka waxaa laga yaabaa hadda markaan wasiirka ahaa ciidan badan oo ilaaliyaan lahaa hadda xildhibaan baa ahay waxaa laga yaabaa anoon ciidan wada inaan magaalada ku dhex lugeeyo marka arrintaas khatartaas waa u bareefnay anigu hadda farmaajo iyo xukuumaddiisa waxaan kusoo dhaweynayay oo aan waxaa ka mid ahaa waxaan aaminsanahay mar kasta oo dad badan oo aqoon-yahano diyaastar waddanka ka yimaadaan xagga soomaaliya waa soo dhawaanaya wayna muujisay arrintaasi markii hadda ay xukuumadda soo galeen niman dibadda ka wada yimid waayo waa maskax ka duwan maskaxdii ka jirta soomaaliya gudaheeda taasaa marka waxay keenaysaa in khatarta la qaato sida haddaan muslim nahay oo diinta aan aaminsannahay geerida marka waqtigaa dhimanaysa waa waqti qoran qof walbana waqtigiisa ma dhaafaya ama maraykan joog ama xamar joog marka arrintaan waxaan qabaa qof kasta inay waajib ku tahay waxa yar oo uu awoodo ama aqoon ha ahaato ama khibrad ha ahaatee dhulkiisa inuu isku taro waayahay waa 21 eber 993 ansiyo ninka guure dadkan degan tahay waxaa leeyahay diiri rale dalkan degan tahay marka loo eego ninka mudanaha isagu aanu kala hadlayna arrimaha xamar iyo dowladda dhankeeda dalkan aad degan tahay cumar mar uu hadal hadday ka hadlaya wuxuu sheegay Soomaali banaan baxday markii dambana laga kala tegay arrinta waa si looga tegay dadka qurbaha degan ee Soomaalida ee maanta taageeraya prime minister inuu kursiga joogo waxaan la badbaadiyay halka loo ugu deganaya adigu aad kamid tahay abaabulaha oo aad tahay nin oday naqaano oo runtii aad uga shaqeeya arrimaha Soomaalida dalkan degan ma hagaagi lahayd bay kula tahay haddii halkan la isku qabsado oo Soomaalida halkan joogta ay qabsato maanta siyaasadda Soomaaliya ay ka duwanaan maanta ay tahay su-aasha markaan jawaabteeda soo gaabsho wuxuu ahaa oo kulama dadka Soomaalida ay sameeyaan garabsi wax weyn la gaarayo umaduna waa inay hal ujeedo difaaca inay jirto taa waxaan qabaa horumarka koowaad inuu yahay maca dalika inay garan karaan waxay xaqiijinayaan dadka taariikhiga la rabaa haddii waqti uu saamaxo dib ugu laabto anigu waqti dowladda kuma jiro waxaan ka mid ahaa mucaaradadii waqtigii Ethiopiaanka uu dalka soo galay asmara ku aruurtay ayaan ka mid ahaa waxaan galay golaha dhexe ee halkaa kadibna muddo yar shariifku madaxuu noo noqday markuu madaxa noo noqdana September bishii 9 2017 heshiis loogu yeeray maaragtay tafaahum ama iscaf khaasatan bangisterka farmaajo arrintiisii martiba halkan fadhiso ay yihiin aqoon-yahano iyo qaar siyaasiyiin oo dalkan degan ahaana dad jagooyin kala duwan usoo hayay dowladihii hore ee Soomaaliya ahna kuwa maanta baarlamaanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Sheekh Shariif uu ka taliyo mid kamid ah waxa uu nala fadhiyo halkan oo marti uu loogu yahay dadka hawada naga dhigaytay Soomaalida nagala qayb qaatay habeen walba hadda barnaamijyada kala duwan ee aanu ku soo qaadno arrimaha bulshada ayaa ah kuwa nagala soo xiriiri kara caawa nambarka 21 41 eber 993 waxaanu runtii ka afafanaynaa inaanu bedelay nambarkii hore uu yahay nambar cusub kan markaa ciddii qalin qaadan karto qoran karta marka aan ku celiyo waa 21 41 eber 993 21 eber 993 waanu isku daynaa inaan dib ugu soo celino loo hormaro kala caawa nambarkan cusub awgay bal aan dib ugu noqdo Dr. Cabdi Cali Xasan aan ku bilaabo aan weydiiyo su'aal halkan aan niyadda ku hayay aan weydiinaa rabay umad kalena wakiil kulli aan ka noqon doono diimaha aan galno xisbiyada kala duwan ee siyaasadeed iyaguna khilaafka ku dhaxaya dalka Soomaaliya jiritaankiisa dilka ku yimi wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya maalintii Jimcaha ahayd waxaa sheegtay al-Shabaab afayaan u hadlaya shacabka in gurigiisa ay ku dileen maalintii Jimcaha awoodooda intaas gaarsiinta iyagoo ku nool Muqdisho dawladda ay ka jirto waqtigaagii iyo waqtiga maanta caawa 2011 la joogo awooda jirta oo cidna xaqiiq karin al-Shabaab ee guryaha dadka ku jiray sida la sheegay
سيرة بس إن لو جوجين كانوا يقولوا بالذات كانوا مثلا مثلا في السياسات في الجدول الشهري الثاني والبرنامج. فاد بقى محسن هو سؤال في عن واللي سويديو مرور بن أباحن دقيقة وربا هذه الفرق إن الصومالي يعني من هذا الحلقة جارو. سيدا لو جوجين كانوا أنا وحيتها هاي ولبمت in wada hadal lala fulo dadku dhulkay wax ku leeyihiin sida muuqatana siyaasad bay daneynayaan kamida dhulka Soomaaliyeedna waa haystaan hadii dhankooda laga helo ogolaansho tan kale sida lagu joojin karo waxay tahay in laga tabaabulshaysto dawlad walba ayada laga rabaa amniga dadkeeda mas'uuliyiinteeda iyo shacabkeeda ayada ballan qaaday in ay ilaaliso عدو كستا أما ميد جدا أما ميد بدأت هذا إني كهرتكتم تاس معناه هو حوي أيام ده أهيد وتعسينا مرة بعد يمسد حد وزير عبد الشكور ونقال كوا سوماليا أتجرب كريسان ضد بدن السويدية ساعة قفك ماشى إنه كان نقول غالية أصله النور كان في عنها يستدي بدها أن يبني أما ميلا كله إنه دور سو هذا ريسكياس أو ما هو بدعي ما هو وزير كيكوات ما كيلوات ما كيس دحد ما حلبان كي أفراد شنات كل أنت أصله كشقينا يا سوماليا مرون دي موسى نقدر دولة دي دحين سيدا كرول وجوجي كرو حين قدرة عيال كان لأديك سنة مساكين تا أفوانتو دي انتلق الدي مشروع عنديرين مرحة لو شوي مركي قاركود سيدا أوركو هدين اللي دروغ على سينايا وفكي أساقو اسكور قبيب أديك قبل أن هذا اللي هو أسقر حسي أساقا دبسي هو سي إلا ما تلعب كده بحناية وحبري قبل جامعات ديان يفتو تقترنيه براني ساهل بالالي أبهد وانين تقاره هيستا وقف ده فامي لأن وحيد استينك أصاب حي ويهجينا إن تختلط نقطة أي واحترتيه أيدي نواتكتي أذيك كده أنت فقبنا يوابي مركب معناه هذا حيث وحبا حتى هاي ماشا وعي قليل حوق لإلا ساميه أما حق دولة ذا كتي ما أما أنا قد كان قاعد أمير هذا ومستقبل كمان تسكلي إن أنا كخيب قادنه وهذا كالدوانا والدوانا كشقينا إن كميديا كشقينا أنت إن حوق إلا سعره ووعي قليل حوق إلا ساميه سيدي لو تيجي الجول أنا صار نقول أنت أنا كم حقول عليه وحكمت هذا كمان صوماليا ناو وقتها كذا الله شيء عشان تقول لي كتير marka soo xalada hadlaa baarlamaanka arrimaha lagu haysto barnaamijka waxa kamid ah inuu afcad ka soo jeediyo yiri marka war cadoon qarsooneen dadka baarlamaanka ee dibadda jooga naguma laha shaqo kuwa xamar joogay soo hawl galeen nibkaas leextay raaxa ku dhex jira lacag ku leh shaqo iyo mashaariic ku leh shaqo gal iyo aqlina ku leh shaqo adigu waxa ku sheegay ممكن النرويج وائم على النرويج وحكم تاعي برلمان كده كان روح حاول بدينا اقول هذا هو دكتور ورغم اللي وقت الله كنت الله هو قال لي waxa la yiraahdaa ومن waxa la yiraahdaa دكتور عبد علي حسن وagricultural economic and policy BSc holder وقبله بهاي اقول هذا اجراءاتكاgu badbaada ku jirto sida farmaajo shalay warkiisa maraan dhageystay mar qad telefoon oo soo diray wuxuu yiri shicibka wala iscafin lahaa laakiin shicibka daraadiis baan waxaan u rabaa inaan u dhinto hadalkii lan dadka wasla fadhiyaan ee aqoon hadlaya markaan dhageystay wuxuu yiri jaradii waan cishta waan ku dhimanayaa sidii wasiirka saaxiibka isaga jimcii loo dilay hawshu dadkiina aqoonyahanada sidoo kale oo dadkan degan caalamka Afrika meel kasta ay degan yihiin ma laga yaabaa in aad isruursataan oo tiraadaan ku beddelkiina wax u qabto anigu de farmaajo ka hor baa arinta go'aansaday 2000 markaan tagay dadka qaar inaan waalanahay ii haysteen anigu de nolol fiican ku haystaa oo dhulkan deganaa marna waa shaqeynay marna de shirkadaha ku lahaa meeshan dadkii yaqaanaan يا كذا في حبضة حمر هذا كأركيسور يندجنا وزيرك وحلقية هذا مركب وزيرك عيدا بدنه إيرانيانها هذا حلبان هاي وحلقية أنا عيدا بدنا ميارد كل حلوين مركب أنت قطرت سوى أوبرحني أنا هذا فرماجي حكومتي سوحا أن كسر وين أي وأنا وحكم ده وحن أمن سنة هاي مركز تأوضت بدنه أقوي هنو دياسر وذك إيمالا حق سومالي وصول وأنا يعني وين موجسي أرنتاسي مركي هذا أي حكومة السوق لأن من دبده كودي ويو مسكح كدوان مسكح دي كجبت الصومالي يقول هذا تاسع مركو حكيني سنة إن قطرتها لقاته سيدا هذا مسلم هاي ودينتا أمسنا هاي في جريدة وقت قاعد مريس وقت القرآن قفل بنا وقت يسمى عفاي أو مرايكن جوج أما حمر جوج مركا أرنتا وحاقبا قف كستا إنه واجب كتاعي
وحير أو أودا أما أقونها أهاتو أما خبرتها أهاتي دول كيسين واستسروا. وياي ولا تني يكو إبر سجال يسدح أنسي نكلي أبوري ده كان بجد هاي هذي يعني وحاليا هذي هذا ده كان بجد هاي مرت له نيك المدن يسوي عنه كره اللي ما حمر دولتنا كده ده كان بجد هاي عمر مر هذا الهدايا كان لا يروح شيء الصومالي بنام بحذاي مركز دمرة لا يكره تجي أنت وش اللي بتجي dadka qurbaha degan Soomaalida ee maanta taageeraya prime minister kiinu kursiga joogo waxaan la badbaadiyay halka loo ugu deganaya adigu aad kamid tahay ee abaabulaha oo tahay nin oday naqaano oo runtii aad uga shaqeeya arrimaha Soomaalida dalkan degan ma hagaagi lahayd bay kula tahay haddii halka la isku qabsado oo Soomaalida halka joogta ay qabsato maanta siyaasadda Soomaaliya ay ka duwanaan tamaan tahay su-aasha markaan jawaabteeda soo gaabsho waxa wahaa oo kulama dadka Soomaalida ay sameeyaan garabsi وحوينا الجاري ومضونا وإني هل أجيده هذا يد الدفاع إني جت صعب عن طبعا برمك الكوارين وياي مع ذلك إني كان واحد حكي شيء يعني بدك تعريض يا رب دي وقت ويسا مهمين دي بقول أفطر أنا وقت الدولة دكمنت جوا عن كم ده معادل دي وقت إثيوبيا فوضى الحصار جاي أسمرك وعرفت إياه كم ده وعن ذلك كلها تحيل هالكا كدنا مدير شريف كمضى ونون نقضي مركم راح نون نقضنا سبتمبر بشي سجالات لما يكون يتوقع شيء سلوي عليه ما تفهم أما